هلا السلام عليكم أصحابتي سيتهين سوما في عندين ساكو بردين ساكو رقشين أصحابتي وإذا حيسي بريهان كليبس كي يرى اسكسو دو ايمان اسكسو دوين واسكو يرى مشغول يقرأ النقطة I recently learned وحل man-centered world مفاهنتي dumara ka hadlayo dumarka badana waxyaalaha oo nimanka ka hadlo waa cadaanka badana oo badan oo feministiga ah mafahanti so erayo ee ka hadlayeen ba hit me in my head mafahanti and I realized that aniga xataa waan sameeyaa gabdhahena Soomaalida oo dhan lagu soo koriyay that's why we are so much in dhibaatooyin badan ku jirno gabdhaha Soomaalida dhibaatooyin aad u fara badan ku jiraan mainly marka aragtina dhibaatada waxa koos garay waa maxalahay raga mafahanti every time raga ka sheeganayaan everything they do is centered around men. I just realized that laba gabdhood oo Soomaaliyeed meel iskugu imaato they talk about this heblaayo waa la furay heblaayo waa la qabaa heblaayo saanay sameysaa it's all about the men that is in their life, so that's why it's called the man-centered world. Waxa laga hadlayaa dumarka everything they do or they say around revolving around the man mafahanti so I just realized that dumarka Soomaalida they are all centered around the man aniga ma dhahay gabdhaha Soomaalida way xun yihiin laakiin all they do celebration haday ahaato farxad haday ahaato everything haday ahaato is all revolving around the male Somali ragooda mafahanti and I just realized that oh my god like that's how we were raised because maamooyinka all they think about gabdhaha ay ku dhahanaya isqurxi naagu saqbada nin guursanaayo malahan naya maxalahay kan sameey nin ku rabaayo malaha hadaan sameysid maamooyinka always waxay ka hadlayaan naag kale ka guursatay ninaasan marka all day long and all our bring ups like marka la soo korinay we were all raised around the center of men so if the man is right here all the Somali woman is revolving around the man fancy warshaykadan shaah u soo qaata wallahi bila google gareeya waxa la ahaa male centered world allaha fancy so I was trying to come on bismillah shaah bigeys waa shaah waa TikTok live arwina galo so somebody told me oh naya TikTok ka sheekeeyo ka hadlo nimanka ma rabaan ma fiicno TikTok ina live gashid ama TikTok live ka sheekaysta I'm like what the why like why is my life revolved around men any man who wants to be with me can be with me because I know who I am if I'm on TikTok live waxun ma sameynayo I'm talking to people waxyaalo faa'iido u sheegaya waxyaalo anfaca u sheegaya I know who I am fahanti so why is it that when I'm doing something I have to think about the man that's going to be in my life that's going to be like oh naagta waa naag TikTok ka hadasho marabi maxay marka I'm like sometimes even in my brain waxyaalo qaarkood marka rabo inaan sameeyo waxa ka fikira oh nimanka maxay ka fikiri doonaan marka waxa sameysid I'm like oh Soomaalida ana dumarkeena we are male centered maxalahay women and everything the woman does is centered around the man there's nothing wrong with you respecting ninkaaga aabahaaga ama walaalahaaga laakiin to the point where marka waxyaala qaarkood ka fikirin ama arabno inaan sameeyno inaan ka fikirno ragga noloshaada soo gali doono waxay ka fikiri doonaan so I'm like oh my god yeah upbringing and was fucked up and the Somali women that's why they have so much problems because everything they do is revolving around the man and validation karanka loogu baahan yahay I mean it's nothing bad with
being somebody or high standards leh, somebody high value leh, somebody waxyaalaha qaarkood aan ku dhicina haatid way fiican tahay infaantii oo qof decent ahaatid because mustaqbal u baahanta qofka noloshaada soo galay xataa inuu uu ahaado waxaa waaye uu dhoo qofkaan maxallaa qof decent waa mafahanti. It's not like inaad tiktok iska soo galayso iska niikinaysid waxyaalahaas oo kale ma fiicno. Like some things like you want to do or some things that makes you happy. This video is for me. Wala ana wa nafsadii la hadlayo maanta. Has nothing to do with men, you know. Farxadaada has nothing to do with male. You know, if you want to be a truck driver, go be a truck driver. You know, don't think about ninkiga guurtan doono wuxuu dhii doonaa naag truck driver ah marabi. Marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaa dhihi lahaa think about waxyaalaha ka fikirayno inaa sometimes ka fikirno like waxyaalaha sameeyrabna inaan ka fikirnaa fiican aan dhahno maxaa ka fikiraya. Is my thoughts and actions are centered around men, or am I doing things for myself, you know? So mar kastaba nafsadaada horumar insha Allah. Gabadha walaashii Soomaaliyeed I think it feels like it's changing. Waan horumaraya mafahanti horumar kala la socdo way salaamiya hada waxyaalaha soo gudbiya ka heshaan fadlan waxaan ka codsanayaa inaa follow idhahdaan copy link ii taabta others kana ii taabta insha Allah. YouTube da ku aragto videoyadeedna YouTube ka subscribe dhaha insha Allah. way salaamiya inta video iska kulmayna khayr idin rajeynaya. Assalaamu calaykum. Bye.